السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن كسو دوادا درس عصب وكمدا دروستا دوكسي 24.com ودرسي لبات قيبتي سكوبات درسيغان بإذن الله الكريم وحانكم برنينا الحرف في مواضع مختلفة من الكلمة. حرفك أو كتشرا كلمة كجتشرا meelo kala duwan kelmadda markuu xaraf ku dhaco billowga kelmadda billowgeeda u dhaco iyo markuu dhaxda dhaco iyo markuu dhamaadka dhaco sida loo qorayo iyo muuqaalka uu qaadanayo sida hortiina ka muuqata tusaale ahaan oo kale xarafka ba markuu kaligii yahay saasa loo qoraa marka uu billowga yahayna saasa loo qoraa oo ganta xagga dambe gantadaasi way furmaysaa saasa loo furayaa ba ba oo kelmadu maaratay kelmad ka bilaabanayso halka markay tahay wasat kalima waxaad arkaysaa ba'da sida loo qorayo labada dhanba way ka furmaysaa labada dhanba waa laga furayaa ba'da oo dhamaad ah sidana loo qorayaa alifkuna saas oo kale ayuu ahaanayaa taada bal aan fiirsano taada sida loo qorayo tusaale ahaan oo kale taada marka saas la yiraahdo xagga dambe way furmaysaa ujeeda okay taada oo ku jirta dhaxda ku jirta waxaan dhahaynaa ta oo dhaxda ku jirta saas ay noqonaysaa labada dhanba ay ka furmaysaa haye taada oo dhamaad ah say noqonaysaa taada oo dhamaad ah iyaduna saas ay noqonaysaa waxa la mid ah tha ayaa la mid ah waxa la mid ah xarfi tha ayaa la mid ah tusaale ahaan oo kale tha ayaa la mid ah waxaan dhahaynaa tha'dana tusaale ahaan oo kale haddaan qoro tha iyaduna waxay noqonaysaa tha oo bilow ah tha oo dhex ah dhexda ku jirta haye tha oo dhamaad ah tha oo dhamaad ah waxaa la mid ah oo maaragtay yacni la mid ah xarfahan noqon kara aan arkaynaa jim aan aragna bal tusaalahaan oo kale jim ayaan arkaynaa jim markuu keligii yahay saas weeyaan jimku markuu u galo kelmadda bilowgeeda uu galo gantadan laaban xaggaasi way toosaysaa waxay noqonaysaa saasay noqonaysaa jim waa jim oo kelmadda bilowgeeda gelaya okay jim oo dhexda ku jira saasuu noqonayaa labada dhanba waxaa weeyaan uu toosayaa jim oo dhamaad ah waa kana jim oo dhamaad ah saasuu noqonayaa waxaa la mid ah xaa baa la mid ah xaana sidoo kale saasoo kale weya xaa oo bilow ah xaa oo dhex ku jirta xaa oo dhamaad ku jirta kha oo keligeed ah kha oo bilow ah kha oo dhex ku jirta kha oo dhamaad ku jirta okay qaybtan waxay ku saabsan tahay waa qaybta cashirka labaad qaybtiisa koobaad kan waa inaan si fiican muraajacaynaa oo si fiican la soconnaa qaybta labaad cashirka labaad qaybtiisa labaad insha allahu tacaala darsiga ee xiga ayaan ku qaadan doonaa barakallahu fiikum